kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo caalamka aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo alaba idinkaga yimaada stuudiyaha magaalada Nairobi waxaana inta badan aanu ku wareysanaa dhaktarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys oo ka soo shaqeeyay wadamo ay kamid yihiin Ingiriiska iyo Jarmalka iminkana ka howlgala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ee degta Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight wuxuuna ka howlgalaa isbitaalka International Health Center barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa cudurrada ku dhaca baarka aan iraahdee waxaana marti igu ah sidaan hore idinku sheegay Dr. Cali Mucu Aweys Dr. ku soo dhow Bismillahir Rahmanir Rahim Abdullahi aadi bankuuna cilaya waxaan rabaa inaan uga celiyo Soomaaliya bal shaqaalaheeda oo dhan meel kasta ay joogaanba iyo madaxdeedii waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aad nasiinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed aan ku wacyigelin karo marka xigta Abdullahi hadii aan dib ugu soo noqdo su'aashaada intaan dib ugu soo noqonin waxaan rabaa inaan iraado ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba qaasatan reer Kenya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Dr. aad u mahadsan tahay daawadayaal iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta Dr. Cali Mucu Aweys oo ku taala xaafadda Soomaalidu ee degta Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight waxaana lagu magacaabaa International Health Center bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Mucu Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degta Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight Bismillahir Rahmanir Rahim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Mucu Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Mucu Aweys Dr. Cali Mucu Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda waa hagaag soo noqod wanaagsan daawadayaal Dr. waxaad warbixin inooga siisaa cudurrada ku dhaca baarka Abdullahi aad baan ku mahadcelinahay markale baarka markii la yiraahdo dadka si u badan yihiin Soomaalida markay ku yimaadeen waxa lagu leeyahay baarka laga haystaa bogga laga dhigan yahay aniga baarka u dhimanaya adiga markay ku yimaadaan ay ku leeyihiin laakiin baarka marka wadiisa xaqeen oo ka jira beer ay ku leeyahay bidacdana ma galo baarka wuxuu ku jiraa midigta dhanka midigta ayuu ku jiraa 99% waxaa jira 1% oo qalad u dhasha oo xadhan kala wareegsada wadnaha midigta gala baarkana bidacda gala waa 1% oo ka yar 0.5% ayraa cudurkaas kaas bataqaana dadka saac u dhashan waxaa leeyahay Cartagena syndrome taas markaan dib ugu soo noqono baarka wuxuu ku jiraa 99% dhanka midigta waxa gadaashiisa ku yaala oo aan ka hadli doono laftigiisa xamiitada waxa la yiraahdo ama loo yaqaan gallbladder oo ka baarka gadaashiisa ku yaala marka baarka wuxuu shaqo markasta ay wada shaqeeyaan oo shaqo ka dhaxaysa baarka xamiitada ganaca iyo caloosha afartaas organ oo ku jirta uurka ku jira way wada shaqeeyaan hadii kan cilad oo helo kan kala saameyn ku yeelanaya kaas duu cilad qabo kan kala saameyn ku yeelanaya marka dib ugu soo noqdo su'aashaadii baarka horta cudurro badan ayaa geli kara markii aan iraahdo cudurrada Soomaalida gala ama Soomaalida waxaa inaan ku sheego Soomaalida waxa u badan cudurka la yiraahdo hepatitis B iyo C marka waxaa jira wax la yiraahdo autoimmune disease autoimmune disease wax la yiraahdo isaga laftiisa oo beerka gala
oo marmar mataqaana marka cudur uu kugu dhaco cudurkan la yidhahdo rheumatismka oo ama tufta loo yaqaano ama riixda loo yaqaano haddii cudurro kaloo jirkaaga soo gala oo arthritis-ka ka mid ah ama cudur la yidhaahdo lupus erythematosus la yidhaahdo cuduradaas ayaa autoimmune disease-ka yimaada oo autoimmune disease-kaas u yimaada laftigiisa beerkuu taabanaya hadee waa cudur asagana gooni ah marka beerka waxaa kaloo taaban karaa haddii cancer uu jiro naasaha dumarka ama uu jiro makaanka dumarka haddii uu cancer jiro laftigiisa beerkuu saameyn ku yeelanayo ragga waxaa u badan cudurrada ragga ee ku dhaca waxaa ka mid ah tin la yidhaahdo colon waan ka hadli doonaa cancer waxa weye mindhicirta hoose saxarada soo keenta laftigiisa haddii ay cancer uu yimaado beerka saameyn buu ku yeelanaya oo waxbuu gaarsiinaya haddii sambabka sooma waxaa u badan ragga u badan dadka weliba sigaarka badan oo sigaarka ku badan cancer hadduu ka galo beerkuu saameyn ku yeelana marka beerka waxa weye waa center haddii aan dib ugu soo noqdo intaanan cudurkiisa aanan gelin marka cuntada aad cunto caloosha cuntada tagta oo ugu horeysaba meel kaleba aadi maayo cuntadaas markii la shiido beerka lagu shubaya meeshaasaa sunta looga soo saaraya oo warshad dhan baa taala oo lagu kala bixiya wixii wasaq ah iyo wixii loo baahan yahay wixii jirka u baahan yahay wixii aan loo baahnayn oo dhan meesha lagu kala saaraya wixii aan loo baahnayn waxaa loo diraya keliyaha iyo saxarada loo diraya mindhiciraha hoose wixii loo baahan yahay dib baa loo qaadanaya oo jirkiibaa ku nool oo jirkaa u baahan marka cudurada ku dhaca beerka marka dib ugu soo noqdo waxaa ka mid ah sidaan sheegay hepatitis B iyo C marka cudur waxaa jira soomaalida laftigeeda oo zaa'id ayamahan dambe oo u yimaado waxa keenana ah bariiska iyo baastada iyo sooga badan iyo saliidda badan iyo baruurta la cunayo beerkii baa iska weynaanaya baruur buu fuulaya hadduu baruurtaas uu fuulo waxaa u dhaqanayaa steatosis hepatis baa la yidhahda markuu kaasu fuulo waxaa imaanaya waxa la yidhahda cirrhosis hepatis marka ugu dambeyso wuxuu bilaabayaa ninkaas oo iska socda dhiig buu mantagaya raalliga noqo dhiig buu mantagayaa mar dhiiggiyaa imaanaya oo isagoo u socdo marka dambe wuu ku dhiman karaa maxaa dhacay nus litre oo dhiig hadduu mantago waa finish ninkaasu nool ma jirto haddii aan sida uasa badan aan lala gaarin hadda beerkuu ka imaanayaa cirrhosis hepatis baa la yidhahdaa markii cirrhosis hepatiskaas waxaa lagu gartaa haddii goor hore dadkaan cayilan oo aan socon karin oo maaragtay baruurta caloosha weyno baruurta saaran badi beerkooda kiilo iyo bar baa laga rabaa beerka caadi 3 kiilo ay wataan oo ay hor iyo gadaal u qaadayaan waa qaarkood 4 kiilo ay ku gaarayaan baruur ayaa wixii dhan ku fadhiisanaya oo gabadh yaroo dhiigoo shaqaynaya laakiin baruur baa intay fuusho ayuu sidii lagu shaqayn karin oo sunti baa lagu celinaya waa la majiiraya marka taasu laftigeeda waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba bariiska iyo baastada iyo muufada hala yareeyo hala deyni hala cuno laakiin hala yareeyo qudaarta la qabsado taasu waa talo dhaqtar marka aan dib ugu soo noqdo hepatitis B iyo C kan cudurka soomaalida nafta u keenay dhibay oo aad u badan yahay oo beerka aad looga hayo hadda waxaan ku sheegi karaa weliba hadda meeshaan aan joogno hadda Kenya boqolkiiba 30% soomaalida la arko beerka laga haysta oo sunba ku furan malaaya ku furan beer dhaqan u baan haynaa beerkiiba dhaqaynaa habeen maalin markaan dhimaado waa dhaqnaa beerkiiba ka dhaqaynaa suntiiba ka dhaqaya marka waxaas waxa uu keenaya iyagoo hepatitis B iyo C lahayn ayaa beerkii iska sumaysan balaayin baas ka gasho oo hepatopathy wax yidhaahdo intuu galo infection galo oo wixii uu saameeya ayaa ku koraya wixii baa badanaya taasna waa jirtaa marka hepatitis B iyo C markaan kuu sheego horta cudurkaas boqolkiiba 100 galmada waxaa la yidhaahdo ayuu ka yimaadaa marka xigta wuxuu ka imaanayaa isbitaallada qaarkooda aan nadaafad aan lagu shaqaynaynin irbid qaf kale ee qaba cudurkii haddii lagu duro ama dadka ilkaha ka shaqeeya wax bir ilkaha qafka beer waxaa waaye hadda takhaatiirta iyo naariska iyo meelahan maaragtay farmasiya oo inta la tagay cudmada dur iyagu qabso haddii ninkaas uma qabo khibrad uma qabo ninkaan farmasiga jooga weliba africa uma qabo khibrad oo mataqaanaa waxaan wixii adiga ku dhawaad wixii kale daawadaas in laga wada bartay
markaas cirbadii u durkaali uu kuleeyahay ku duraya cirbad nin kale lagu duray ayuu meesha ku taalaa ilaa meesha qarasha la diidaya in la galo adiga haddee garabkaaga galo adaa balaayiku aad qaadanaysa marka kaasna waa jiraya yurub markaan kuu sheego nin farmasi jooga cirbada dur makaa yeelaya ma ku duri karo kuleeyahay adiga u tag ama dhakhtar warqadkeen cirbadii inaad ku qaadato si kale ma kugu duraya weligiisna ku duraya daawada laftigeeda aanu ku duraynin adoo la imaanin warqad adoo la imaanin oo dhakhtar ka socda marka meeshaas heer sare gaareen laakiin anaga weli kaas waa ku soconaa bal ilaahay aan badbaadiyo taasu waxa weeyaan hepatitis C iyo B waa cudurkaasna waa jira waa tahay marka doctore cudurrada inta badan markuu qofka ku dhaco sidee loogu gartaa cudurrada beerka ku dhaca cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waa su-aal cajiib ah aad i weydiinayso beerka cudurka hadduu ku dhaco qofka bini aadanka ma garan karo beerka xanuun ma leh ma ku xanuunayo wax xanuunaba dareemaysa markay midida kugu tagto oo intay ku gasho xagga dambe ka soo baxda ayaad garanaysa maxaa lagu gartaa su-aashaada markaa dib ugu soo noqo waxaa lagu gartaa 100% daal badan ma shaqaysan kartid hurdo ka kici maysid adiga waa daalan tahay cuntadii ma ku dhadhamayso cunta ma cuni kartid dibiro badan ayaad horta hore ay ku bilaabaysa marka intaas aad ku bilaawdo aad ku sii socoto calooshii waa mar kastaba marka inta marka soomaalidana sidaan aan ku naqaano annaga weli hadda way ka fiicnaadeen waagii hore hadda waa roon yihiin sidaan dhaltalooyinkan 10 sano iyo weli 15 sano tala bixinaya aan siinaya soomaalida hadda way roon yihiin xoogaa way cararaan laakiin markii ay ku tagto cudurka uu ku dhammaado ayuu dhakhtar loo geenaya marka waxa waaye xaalkiisa waa meel sare cudurkaas beerka ku dhacana wuxuu ku fiican yahay horta cudur kastaba goor hore haddii aan dhakhtarka loo geeyo qarashkiisna waa yar yahay caafimaadkiisna ilaahay hadduu keeno waa soo degdegaya laakiin ninka cudurka ku tegay ku dhammaaday qaarkood markii aan joogay garowe gaari ayagoo lagu wadaa la keenaya oo ninkii lasoo gugubay oo lasoo dhameeyey oo meel kastaba lasoo dhufacday ayaa la keenaya taas waxa waaye ninkaas sida lagu daaweeyo way adagta marka debka laftigiisa dhibaato uu keenaya in beerka la gubo dhibaato keenaya muxuu keeni waaya haddii qofkii oo korkiisa daciif ah oo tacbaan oo meel xoola haddii lasii gubo jirkii wuu sii kacaya bogsasho intuu bogsan laha wuu kasii daraya gubitaanka dhib buu leeyahay badan laakiin soomaalida yaaba waxaa gubitaan mar kastaba ilaa hadda weli waa lasgudaa subxaan allah bal hase ahaatee marka aan dib ugu soo noqdo cudurkan waxaa jira maaragtay adiga markii aad heerkaa badan aad gaarto indhihii baa ku cagaaranayo indha cagaar baad keenaysa lugihii baa bararaya calooshii baa bararaysa marka dhibkaasaa imaanaya marka indha cagaarkaasoo kale hadda aad soo hadal qaaday baar xanuunkaoo kale dhibaato u keena miya markii beerka lagaa qabto cabdullaahiyow aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa beerka markii lagaa qabto wuxuu soo daadinayaa wax cagaaran oo soo daadinayaa waxaas cagaaran wuxuu ka soo qaadayaa xamiitada ku jira annaga waxaan dhahnaa soomaali marka caruurnimadeeda xasuustaa mandheera ku daacado wax cagaaran oo maaragta sidan aan fiicneeno marka xoolaha la qala haddii beerka uu ku furmo uu ku daato haddaad cuntamada cuni kartidba afkaaga dhanqaa wuxuu noqonayaa si aan wax fiicnayn waxaas markii qaacada kaa badato ayaad keenaysaa waxaan cagaaran kaasoo kale ayuu soo sii deynayaa dhiiguu kusoo sii deynayaa indhaha imaanayo jirkaa imaanayo cijooyinkaa imaanayo adiga dhan baa cagaaranaysa luga barar ayaad keenaysaa caloosha baa bararaysa oo biyo gelaya sababkii baa biyo gelaya adiga waxa weya halkaa waa meel sare dib ayaan ugu soo laaban doonaa talasiinta Dr. Cali Mucu Aweys daawadayaal iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta Dr. Cali Mucu Aweys oo ku taala xaafadda Soomaalidu ee degtay Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight waxaana lagu magacaabaa International Health Center bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Mucu Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego
sanadkan cusub wixii ka bacda in laga helayo isli xaafadda 12 street Moonlight Hotelka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa. daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Macow Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uurku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aweys. Dr. Cali Macow Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda. isoo noqod wanaagsan daawadayaal Dr. qofka biyaha ka galaan caloosha iyo lugaha oo kale ma sabab mi u yahay baar xanuunka ku dhaca cudurrada. Abdullahi su'aasha laftigeeda su'aal cajiib ah hadaytan waa soo taabtay marka aan ku sheego horta maxaa keeni kara lugo barar iyo calool barar beerka kaliya ma aha waxaa jira cudurro kale oo keeni kara bararkaas marka beerka mid buu ka mid yahay oo waa keenaa marka beerka shaqadiisa ay gabto oo shaqadiisa uu gabo oo shaqada uu isdhigo beer biyo soo sideynaya oo biyahaas caloosha kusoo furmaysa lugaha oo kusoo furmaysa sababka laakiin cudurro kale jira aan mar dambe ka hadli doono laakiin haddana aan taabanayo wadnaha haddii laga hayo asaga laftigiisa biyo keenaya oo caloosha galaya oo lugaha galaya wadnaha haddii kelyahaaga ay shaqadooda iyadana gabto wuxuu keenayaa lugihii inay biyo galaan calooshii inay biyo galaan sababkii inay biyo galaan saddexdaas organba oo uurku jirta oo gudaha ku jiraan hadday dhibaato qabaan biyahaasay soo sii daynayaan marka maxay ku kala gedisan yihiin waxay ku kala gedisan yihiin kambeerka goor hore ma garanaysid laakiin markii biyaha u yimaado oo wixii ay bataan oo biyihii sababka ay galaana neeftuur baa bilaabaysa تكليدنا وأساس وكله لكن تولناها مر الله لبركم بالله وبيه إنه دعيو ولوجا برا لماذا نفتي نوعني بيسا جرجر مفول كرو مصعون كرو سدح تلاوة دوقا وجوك سنة يا نفتور وأن لشيء كره والله يتعسلوا كره قرتها إذا اختار كمركم بيجيو أركو كره كره beer kamarku bararo kale taasoo kale maxaa la dhigi karaa cudurkaas. Abdullahi aadi aan ku maadcelinayaa beer barar waxaa keenaya cudurrada hadda aan sheego oo kale sida hepatitis B iyo C sida autoimmune disease sida cirrhosis hepatis waxaa keenaya hepatopathia la yidhaahdaa beerka caadi waa kiilaya bar sida loo sheegay markaas wuxuu iska noqonayaa beerkii 4 kiilo 5 kiilo ayuu gaarayaa oo maba meesha dhan marka aragti qofka marka aragtid calooshiisa saa u taagan meeshaas saa u soo bararaysa meesha gacmihi oo dhan saas way marka kiiladii loogu talagalay ka badan oo marka uu ku saaidaya markii beerkii ma shaqaynayo shaqadii uu gabaya shaqada markuu gabo aad arkaysaa qofka cudur baa ka muuqda inuu jiran yahay qofka waa dareemaysa calooshii aad ka taagan beerkii intaas uu soo gaaraya waa weyn uu ka badanayo marka xataa neefta dhibaysa ma neefsan karo markii uu yiraahdo ma aragtay sababkii inuu neefsado ma neefsan karo دال يكون معنا من نفسك كرو مساحن كرو فريسك كرو مجوكسن كرو سبحان الله waxaa jira cudur hore aad u sheegtay oo hepatitis C iyo B la dhaho oo Soomaalida ku badan maxaa is dhigi kartaa Soomaalida uu ku badan yahay maxaa se looga hortagi karaa cudurkaas. Abdullahi markale aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa cudurkan hepatitis C iyo B ga Soomaalida aad buu u badan yahay waxaan noo keenayna waxaa ka mid ah annaga Soomaaliya haddaan nahay waxaa dhibaatada ugu badan aan qabno adiga gabar baad jeclaanaysa waa is arkaysaa markaas aragtaa inaad waxaad isku dayaysaa xadbadsato wala sheekaysanaysaa gabadhi haddii aad la sheekaysato inaan ku guursadaan rabaa haye aabahee u tag hooyadee u tag aabahii hooya loo tagaaya markii loo tago aabahay hooyada haye bes haye wixii kana xoolihiiba xoolahaasaan bixinayaa gabadhiyaan raba gabadhiyaa la raadsaday oo
dad baa duqushna loo dirtay ma lesbaarayo gabadhii ma jiran tahay adiga ma jiran tahay lama oga gabadhii baad guursanaysaa galbaa lagu wada sameeya markii lagu guuriyo baaritaan male waxaa dhici karta hepatitis B gabadhaas inay qabto waxaa dhici karta adiga inaad qabto hepatitis B hepatitis C gabadhiina waad sumaynaysaa haddii kale ayada haday qabtana adiga ku sumaynaysaa marka waxa weye horta taas ayaa soomaalida 100% annaga ismaba baarnaba isma fiirino adduunkana maanta waxaa la gaaray heer waxaa la gaaray gabadhaan iyo wiilkan markaysa arkaan ay isxuqudsadaan ay sheekaystaan aniga jarbadan si fiican aqaana way ku imaanayaan waxay ku leeyihin anaga inaan isguursanaan rabnaa inaan isbaarnaan rabnaa waxaan rabnaa inaan iska baarnay hepatitis B C HIV inaan iska baarnaan waa la baarayaa waa la fiirinaya annaga HIV hadda weliba sidii loo soo jabay oo aradka loo galay oo mataqaan Soomaaliya xubintii wada noqotay wada carartay ayaa hepatitis weliba HIV na soo galay Soomaaliya dadka ugu nadiifsan oo ugu caafimaad badan bay ahaayeen dhankaas waagii hore intii aan burburka dhicin maxaa dhacday annaga Soomaalida annaga muslim baan nahay muslimkana waxaan naqaanaa maaragtay in qofkaan markaad guursanayso ee xalaal inaad ku guursato adduunkaas kale weliba gaaladan maaragtay madow waxa uu keenaya HIV-ga malaha ayaga isbaarid male kan uu dhiibaya kan kale kan uu dhiibaya wixii waa laysku wadaaranaya male control male annaga taasaan kaa filnay laakiin annaga sidaan meelaha usoo galnay oo madowgan usoo dhexgalnay oo adduunka kale u dhexgalnay laftigeenu na sumeeyey oo na baabeeyey oo sunnagii marka hadda waxaad arkaysaa aan aad iyo aad ugu naxay Soomaali HIV qabtaan arkaysaa hepatitis B iyo C waa ku aqaanaa ilaa waxaa noo keenay wax kale maahan galmada ee gabadhii aan iska guursanayno ama anigii baa qaba ama ayadii baa qabta asagoo control leh horta taas ayaa dhibka ugu badan Soomaaliya u keena alxamdulillah maanta waxaan kuu sheegi karaa laakiin heer sare in la gaaray oo maanta la daaweyn karo qaaliba ha ahaado laakiin waa la daaweyn karaa waagii hore cudurkaas Soomaalida waa eber ka dhigay oo dilay oo dhamaadeen adduunka kale laftiisa u dhamaaday siiga weliba khaasatan aad buu dadku u dhameeyey biiga laftiisa ma wax siyaasadan maaha laakiin haddii la iska taxadaro oo la iska fiiriyo oo la iska ogaado weliba waxaan u sheegi karaa haddii gabadhii aad jeceshahay ama gabadhii wiilka ay jeceshahay problem ma jiro haddii wixii la baaro la fiiriyo oo qasaga laga helo ama ayada laga helo badbaadooyinaa la siinaya waa laga badbaadinayaa inay ayada ku dhicin ama asaga una ku dhicin waa la iska badbaadin karaa wax weyn baa la gaaray oo adduunka meel heer u sare maanta casri ah baa la joogaa marka taasaan kuu sheegi karaa laakiin annaga waxaan noo keenay dhibkaa wax kale maaha oo iscaashaqayna oo isguursanayna marka daawooyin cusub oo cudurradan ku dhaca baarka la soo saar ma jiraan aad iyo aad Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waajib daawooyinka waa qaali Afrika weli ma soo gaarin mana soo gaarin kara maxaa dhacay aad buu qaali u yahay laakiin haddana still wixii haddii la isku gurmado annaga Soomaalida annaga waxaan naqaanaa isku gurmad qofka hadduu naga dhiban yahay waa loo gurmanayaa qof walbaa wax laga qaadaya waa loo gadayaa annaga marka waxaana waa wax maaragtay 6 bilood haddii aad qaadatid weliba khaasatan marka qaarkood bil keliya loo baahan yahay in la qaato banaanka u baxaya cudurkaas waa laakiin daawadii baa qaali ah marka cudurradan ku dhaca baarka ma waxay isu gudbiyaan haddii aan la daaweynin cudurrada dilaaga oo kale ha Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa haddii cudurkaas aan lagaa daaweyn cudurka wuxuu weliba hepatitis B wuxuu fiican yahay waqti badan aad ku noolaan kartaa aduu jirkaaga ku jiro haddii ay iska ogaatid C-ga laakiin kansar buu isu bedelayaa oo beerkii buu kansar gelinayaa hepatocellular carcinoma wax la yidhaahdo ayuu ku gelinayaa hadduu kaas ku geliyo xaalkaas meel sare wax ilaahay ma sheegin hadduu daawo kuu keeno laakiin wax ku daaweyn karaa abuurta ma jiro hepatocellular cancer haddii uu kugu dhaco garabkaa garab ligaa ninka dhakhtarka markaa u tagto wuxuu ku leeyahay rabaa laakiin sida u badan yihiin kaasuu daawadiisa laakiin hadda alxamdulillah intaadan heerkaas gaarin ayaa wax laga qaban karaa alxamdulillah ilaah baa xamdiis kale gaaladahaas maaragtay waxay ku dadaalayaan mar kastaaba dawo inay helaan hadda alxamdulillah dawo fiican bay heleen waxaan rajaynayaa afrikana inuu soo gaaro marka Afrika wuxuu soo gaari laada qaaligaas darteed qaaliga daraadiis way u imaaneen xataa dad qaarkood maaragtay oo Yurub jooga Jarmalka waxay fiican tahay nin walba insurance uu qabaa
insurance-kii baa bixinaya laakiin halkan insurance male insurance meesha yaalana waa mid bishii 500 la dhiibo 500 yaa ku daaweynaya maaragtay 20 kun jooga ma ku daaweynaya marka saa daraadeed weli meesha soo gaarin lahaa waa soo gaaraya insha Allah. waa tahay aad u mahadsantahay doctor ugu dambeyntii maxaa tala dhakhtarnimo aad sii lahayd dadka ku daawanaya Abdullahi markale aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay war cudurkaas aan hadda ka sheekeynayo cudur fiican ma aha haddii aad gabar jeclaato ama gabarey aad wiil jeclaato isbaara Syria haddii cudurkaas labadiina qafkooda u qabo jaceylkiina wax dhibaato ma laha waad isjeclaan kartaan waad isguursan kartaan ubadna waa isku dhali kartaan oo khayr qaba hadduu alla laakiin waxaan leeyahay halisbaaro haliska ogaado adiga haddaad qabto nin haddaad tahay cirbadooyina lagaa siinayaa gabadha ku daarin maysid ayadana waa la cirbadeynayaa hadday ayada qabtana saas oo kale adiga lagu cirbadeynayaa ma la isku daraanayo wax isu dhiibaysaan ma jiraan marka saa daraadeed ummadda Soomaaliyeed waxaan talo ku siinayaa meel kasta ay joogaan caafimaadka in lagu dadaalo haddii aad isguursanaysaan maaragtay aad isbaartaan inteedan gurigeli aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Dr. Cali Mucu Aweys ayuu kaasi ahaa oo aan ku wareysanaynay xaruntiisa caafimaad oo ku taala xaafadda Soomaalidu ee degtay Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight waxaana lagu magacaabaa International Health Center intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii caafimaadka toddobaadkan waxaana martii inoogu ahaa dhaktarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys dhanka farsamada iyo kaamirada waa Cali Maxamed Abuukar dib intaan kulmi doono waxaan ku soo dhaweynaynaa qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta Dr. Cali Mucu Aweys International Health Center bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Mucu Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Mucu Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Mucu Aweys Dr. Cali Mucu Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda